بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u mahadinayaa marka ugu horeysa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina soo gaarsiiyay inagoo caafimaad qabno waqtigan waxaan idin rajeynayaa sidoo kale inaad caafimaad qabtaan waxaa kaloo mahad gaar ah u muujinayaa platformkan Taha Inspires oo igu casuumay walaalka Cabdisamed waxaan ku dhahay inaan soo jeediyo buugga aan doortay aniga Cabdinuur Maxamed Axmed waa magacaygu waxaan dhigtaa jaamacadda Ankara University qaybta maxaan ku dhahay ziraacadka ama qaybta beeraha buuggan insha Allah tacaala waa buug uu qoray Dr. Tariq Suwaydan oo la wada yaqaano oo maxaan ku dhahay Kuwaitiana wuxuuna bartay petroleum engineering fieldiga petroleum engineering buu ka diyaariyay PhD hadda waqti xaadirkana wuxuu ku hawlan yahay ama uu diyaariyaa maxaan ku dhahay إعداد القيادة maxaan ku dhahay mashruuc ugu magac daray oo ah tababarida iyo kobcinta maxaan ku dhahay hogaaminta waana barnaamij uu rabo inuu kaga qayb qaato horumarinta caalamka islaamiga buugga uu qoray hadaan u daadago waa buug uu ugu magac daray khutta istiraatiijiya linahdati al-umma waa qorshaha istiraatiijiyadeed ee horumarinta ummadda muslimiinta ah buuggan wuxuu qaybinayaa afar qaybood ugu muhiimsan ama nuxurka hadii aan u daadagno waxa weeye afar qaybood waxa weeye qaybta u horeysa ay waaqaca ummadda islaamiga ay ku nooshahay iyo hiigsiga ama visionka ay ummadda muslimiinta rabto maxaan ku dhahay inay gaadho hiigsigaas ama halka la rabo in la gaadhana waxa uu loo baahan yahay qorshe oo qorsheyn ama khutta planning in la sameeyo iyo hiigsiga aan rabno inaan gaadhno caqabada ina hortaagan ee maxaan ku dhahay ka gudbilaana afartaas ugu muhiimsan hadaan u dhaadhaco maxaan ku dhahay qodobka ugu horeeya waaqaca ummadda islaamiga waxa maxaan ku dhahay caalamiyan waxa la isticmaalaa nidaam ah maxaan ku dhahay SWOT oo la dhaho in lagu daraaseeyo maxaan ku dhahay qodobada aan tabarteeno ama meelaha aan xoog u leenahay meelaha tabardarideena ay ku jirto fursadaha aan haysano iyo khataraha ina soo hortaagan qaabkaas loo daraaseeyay waaqaca amaba doctorku qaabku isticmaalo ah in la daraaseeyo qodobada ama dhibaatooyinka hortaagan caalamka islaami iyo qudraadka ama awoodaha ay haystaan so midda u horeysa hadaan soo qaato oo ah dhibaatooyinka mashaakisha caalamka islaami maanta waajahan ay ka kicilaaday waxa weeye dhaqanka sidoo kale dib u dhac haysta waxtar darri ama waxqabad yari haysata heer statistikada ama warbixinta la diyaariyay ay sheegayso qofka shaqaalaha dawladda ama shirkadaha maxaan ku dhahay dawladaha u shaqeeya caalamka islaami waxtarkiisu uu dhan yahay 7 daqiiqo meelaha qaarkood 17 daqiiqo la gaarsiiya halka Mareykanka iyo Japan ay 8 saacadood iyo in ka badan ay waxqabadkoodu gaarsiisay kolka waxtar darri ama hawl yari ba yaan dhigi karaa kamida dhibaatooyinka yaala dhibaatada kale taalo waxa way hogaamin xumo sidoo doctorku uu sheegay oo ah hadiiba wuxuu yiri la weydiiyo dadka loo doortay xilalka caalamka islaami ama dadka maamul caalamka islaami la weydiiyo miyay u dhameystiran yihiin sifaadkii tilmaamihii maxaan ku dhahay madaxnimo ay miyuu hirgeliyo wuxuu u ballan qaaday bulshadiisa ama waxyaalo laga sugayay inuu u hirgeliyo waxa iska cadaanaysa inay duruufuhun ay maxaan ku dhahay kursiga ku nabeen kolka hogaamin xumana waa dhibaato taagan oo caalamka islaami haysato hadaan ka soo gudubno qodobkaas oo u daadegno qodobka labaad ee waaqaca ummadda islaamiga waxa weeye waa qudraadka ama meelaha awood ay islaami u leeyihiin ama meelaha xoogoodu ka muuqdo qodobadaas waxaan ku soo koobaynaa dhowr qodob oo ah in caalamka islaami uu yahay awood bulsheed ama cadadka maxaan ku dhahay caalamka islaami degan ay ka badnaan karaan Yurub iyo wadamo badan oo la isku daray sidoo kale awood dhalinyarnimo waxaan ogsoonahay caalamka islaami ay u badan yihiin maxaan ku dhahay dhalinyaro jacayl diimeed heer la gaarsiiyay in laga qaaday wadamooyinka qaarkood interview lagu eegayay siday u jecel yihiin in diinta ama kitaabka quraanka uu noqdo dastuurkooda daraasaadka la sameeyay runtii aad baa loola yaabay way Mareykanka daraasaadku sameeyay waxay sheegaysaa Egypt oo kale iyo wadamada la midka inay 90% ay u codeeyeen in maxaan ku dhahay kitaabka quraanka la isku maamulo so waa awood ay haysato caalamka islaami kolkii laga yimaado juqraafiyada iyo meeshu Ilaahay dejiyo oo petrol iyo tamarta maanta la raadaynayo oo cadceeda markii laga yimaado taasina waa qudraad ay haysato hadaan u gudubno qodobka labaad oo ah hiigsiga caalamka islaami meesha ay rabaan inay gaaraan
sideedabana vision marka laga hadlayo waxaa lasoo qaataa ama doctorku wuxuu soo qaatay laba qaybood oo ah higsiga dhow oo 20 sano iyo wixii la mida iyo higsiga fog oo lagu jaangoynayo 50 sano ilaa iyo 100 sano qorshaha aan rabno inaan 50 sano gudaheeda aan qabano iyo 100 sano gudaheeda marka taas inaan dul istaagno meelaha la rabo caalamul islaami inay ka horumaraan waxaana aan isticmaali doonaa warbixinta ay diyaarisay maxaan ku dhahay World Economic Forum oo lagu maxaan ku dhahay xooga lagu saaray 12 arrimood ay kamid yihiin maxaan ku dhahay caafimaadka waxbarashada suuqa maxaan ku dhahay ka jira caalamka waxyaalahaas iyo wixii la mid ah ayaan dul istaagana kulka 12 arrimood baan rabnaa ama sidoo doctorku uu dhigayo yaa la rabaa in caalamul islaami ay xooga saaraan 12 arrimood oo sanad walba la soo saaro statistikiyada yani caalamka ama duwalka caalamka oo dhan sida ugu kala horeeyaan midka ugu horeeyo waxa weey waxtarka dawladeed yani dawladaha ka jira wadamada waxqabad intee dhanbay ay u sameeyaan bulshadooda waxtarkaasi wuxuu noqonayaa dhinaca maxaan ku dhahay caafimaadkii kaabayaashii iyo wixii lamid ah kaabayaashu kaliya ma maxaan ku dhahay bridges la dhisi iyo wadooyin la dhiso waa ka badan yahay kulka waxtarka ay qabanayaan dawladuhu waa lagu tartamaya waxaana markaan fiirino 2017kii statisticii la sameeyay doctorku maadaama kitaabka qoray 2018 waxa ay galay Finland Singapore laba gashay caalamul islaami wadanka ugu soo horeeyay wuxuu Qatar oo 4 gashay iyo Imaaraadka oo 9 galay dhaqaalaha marka la fiirinayo dhaqaalaha dhinacyo badan baa laga fiirinayaa dhaqaaluhu maxaan ku dhahay deganaanshaha dhaqaaleed yani iyo xajmiga uu dhan yahay dhaqaalaha wadanka haysto isku soo duuduubo dhaqaalaha deganaanshihiisa marka laga fiirinayo wadanka Norway baa ku jirta Qatar oo maxaan ku dhahay kaalinta labaad soo gashay Kuwait baa kaalinta saddexaad soo gashay afar Saudi Arabia ayaa soo gashay dhanka waxbarashada ayaa sidoo kale iyadana lagu jaangooyaa maxaan ku dhahay World Economic Forumka oo haddaad rabtaan maxaan ku dhahay aad dib ugu noqon kartaan weforum.com website kala dhaw ayaad ka fiirin kartaan amaba Global Competitiveness Reports-kana waad ka fiirin kartaan qofkii u baahan yani statistikadii u dambeeyay dhanka waxbarashada waxaa muuqatay in caalamul islaami aad u dib dhacay arrimahaasna waxa uu doctorku uu la xiriirinayaa inay jirto gaab u dhaxaysa macallimiintii iyo ardaydii wax la barayay amaba in mufakiriinta caalamul islaami intooda u badan ay dalka ka haajireenba sababo jira awgeed tusaale hadii la soo qaato Iran maxaan ku dhahay dhakhaatiirta Iran joogta iyo dhakhaatiirta Iiraaniyiinta ee dibadda jira kuwa dibadda jira ka badan kolka waa caalam elite-kii amaba dadkii maxaan ku dhahay fikirka bedel lahaa ee waxbarashada tayeyn lahaa ay ka haajireen wadamadoodii sababo jira awgeed hadii aan ka gudbo loolanka caalamku qaabku u eegyahay amaba sida kitaabka ku cad waxyaalaha maxaan ku dhahay lagu loolamayo marka aan ka gudubno qodobka saddexaad ama cutubka saddexaad hadaan u gudubno waxa weeye caqabadaha hortaagan caalamul islaami maanta maadaama kitaabku afar arrimood uu dul istaagay afarta arrimood qodobka saddexaad waxay ahayd maxaan ku dhahay caqabadaha hortaagan caalamul islaami ee loo baahan yahay in laga gudbo caqabadahaas waxa kow ka ah sidaan horeyba uga dhawaajinay oo dhibaatooyinka aan ku sheegnay maxaan ku dhahay madax kursi jecel oo danahooda mooyane danta bulshada aanan maxaan ku dhahay fiirinaynin laaluush badan oo ka jira wadamada caalamul islaami oo aan loo aabayeelin maxaan ku dhahay hantidii ummadda muslimiinta ah saan wada ogsoonahay nabiga calayshi salaatu wasalaam waxa uu mararka qaarkood markuu xil u dhiibo qof uu rabo inuu zaka soo ururiyo waxaa dhici jirtay mararka qaarkood asxaabta mid kamid ah inuu dhaho maxaan ku dhahay intan waa intii zakada maxaan ku dhahay intan ana la hadiyay nabiga calayshi salaatu wasalaam يعني qofkaas sidoo uga ilaalinayo inuu maal muslimiinta kamid oo isaga ku lumo daraadeed ba wuxuu dhihi jiray intuu khudbada ka kacay maxay idin la tahay dad aan u dhiibanayno xil online sanan zakada soo ururi noo soo noqonayo oo noogu jawaabay intan waa intii zakada ahayd intan ana la soo hadiyay nabigu jawaab buu siiyay uu leeyahay muxuu u fadhiisan waayay guriga hooyadii uu arki waayay maxaan ku dhahay in loo soo hadiyay in kale maxaan ku dhahay so waa heerka aan la gaarsiiyay maalka muslimiinta iyo maxaan ku dhahay sida loo dhowray yani diinta islaamiga marka laga fiirinayo
laaluushka kolka qaabkaas u yaala waxaa caqabad ah oo iyadana aanan runtii layska indhatiri karin faragelinta shisheeye ee caalamulislaami lagu hayo oo iska cad oo maxaan ku dhahay aanan u baahnayn sharaxaad dheer. sidoo kale doctoorku wuxuu ku darayaa maxaan ku dhahay loolanka ka dhexeeya caalamulislaami iyo Israa'iil oo dowlad maxaan ku dhahay dhul ka haysata caalamulislaami. caqabadahaas sababa ayuu u sababeynayaa sababa jira awgeed bay caqabadahaasi u joogaan buu leeyahay oo ay kamid yihiin maxaan ku dhahay sababahaas inuu qof haddii isbedel يعني lagu dhaqaaqi lahaa caalamulislaami ay qaarkood ay ka baqayaan maxaan ku dhahay mustaqbal maqan inay masalan maxaan ku dhahay wadamada shisheeye ay soo farageliyaan. cabsi baa jirta maxaan ku dhahay mustaqbalka maxaan ku dhahay laga baqayo waa sabab maxaan ku dhahay keentay caqabadan inay sii jirto. sidoo kale masalan dadka maamulaya caalamulislaami oo maxaan ku dhahay hadiiba ay isku dayaan inay bulshadooda waxay rabaan ay fuliyaan inay ka baqayaan maxaan ku dhahay in masaalixdii kursigii ay waayaan. taas lafteeda waa caqabado jira daraadeed waxaa laga yaabaa inay maxaan ku dhahay xidhiidhka in loo jaro ay ka baqayaan oo cunaqabatayn gaara la saaro iyo wixii lamida doctorku oo maxaan ku dhahay uu kusoo ururinaya caqabadaha jira caalamulislaami haysta. kolkaan usoo daadegno qodobka u dambeeya oo ah in la dejiyo qorshe maxaan ku dhahay caalamulislaami lagu horumarinayo waxa uu doctorku isticmaalayaa amaba uu soo diyaariyey heerar kala duwan oo ah kolka hore in la qaybiyo mashaariicda lagu horumarinayo caalamulislaami. mashaariicda qaybta u horeysa uu doctorku maxaan ku dhahay uu ugu talagalay maxaan ku dhahay horumarinta caalamulislaami waxa weeye in laga bilaabo xalinta mashaakisha caalamulislaami ka jirta oo ahayd afartii arrimoodeen soo sheegnay ee dhanka dhaqanka akhlaaqiyaadka caalamulislaami dhanka maxaan ku dhahay dib u dhaca oo waxbarashadii caafimaadkii iyo waxa lamida ay dib u dhaceen in maxaan ku dhahay la kobciyo hogaamin in la tababaro islaami xukumi karta oo hogaamin karta waa qodobka ah in maxaan ku dhahay mashaariicda laga bilaabo dhaqanka toosintiisa. qodobka labaad waxa weeye si guud markii loo maxaan ku dhahay loo hagaajiyo dhaqankii iyo hogaamintii iyo wixii lamida in loo soo dhaadhaco gobolada oo la qaybiyo gobol walba waxbuu ku xun yahay. tusaale haddii Soomaaliya aan ka soo qaadno gobolada qaarkood waxaa laga yaabaa inay waxbarashadoodu liidato gobolada qaarkood waxaa laga yaabaa inay yani ay ku xun yihiin akhlaaqiyaadka gobolada qaarkood sigaarku inuu ku badan yahay baa laga yaabaa. kolka gobol wuxuu kaga fiican yahay in maxaan ku dhahay iyadoo la eegayo in gobol loo daadego mashaariicdaas in sidoo kale maxaan ku dhahay gobollo loo daadego. mashruuca saddexaad ee la sameeyay waxa weeye markii arrimahaas oo dhan la soo fuliyo in lagu tartamo loolanka caalamiga oo ah inay kaalmo galaan ay wadamada caalamulislaami. masalan tusaale haddii wadan caalamulislaami uu lambarka 9aad uu ku jiray maxaan ku dhahay caafimaadka waa in la isku dayaa 3 jibaar inuu hore u socdo oo 30 kaalinta saddexaad uu galo. haddii wadanku uu 12 kaalinta kaga jira waa inuu maxaan ku dhahay 4 geli kara iyo wixii lamida. kolka waa inaan isku daynaa mashaariicda qaabkan u dejinayno in kow laga bilaabo xalinta maxaan ku dhahay mashaakisha jirta in goboladii loo soo daadago gobol walba gaarkiisa maxaan ku dhahay loo xaliyo iyo in maxaan ku dhahay lagu daro loolanka caalamiyeed ee maxaan ku dhahay maanta la ciyaarayo 12 qaybood ka koobnaa. dibna waxaad ugu noqon kartaan World Economic Forum. maxaan ku dhahay gabagabada haddaan soo gunaanado marnaba la quusan mahayo. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddii qiyaamadu dhacdo oo mid idin kamid ay gacantiisa ku jirto laan hadduu kari karo inuu laanta u beero oo dhulka geliyo ha beero. yacni waxaad garan kartaa marnaba inayna kamid ahayn quusadku maxaan ku dhahay dictionary-ga ama qaamuuska maxaan ku dhahay islaamka. mar walbana waxay nala jirtay inaga inaan wax qabad sameeyno. kitaabkana runtii xaqiisa maynaan gudin laakiin waa mawaadicda ugu muhiimsan ayaan taabanaynay bay ahayd oo ahayd in waaqaca caalamulislaami aan jaangoyno meesha uu rabo caalamulislaami inuu gaarana aan cayino khudadii amaba qorshihii loogu talagalay in heegsiga maxaan ku dhahay ku gaari lahaana la jeexo iyo in aan ogaano maxaan ku dhahay caqabadaha ina horyaala saan uga gudbi lahayn. afartaasoo la isu geeyey baa waxay dhali karaan khudda istiraatiijiya linahdati lumma. yacni afartaas waxay keeni kartaa in la diyaariyo qorshe istiraatiijiga oo lagu horumarinayo ummadda. afartaasna maxaan ku dhahay detail iyo in sharaxaadeeda qofkii u baahan
kitaabka doctorka Taariq Suweydaan khutta istaraatiijiya linahdati lumma ayuu maxaan ku dhahayay ayuu ugu noqon doonaa. wuxuu doctorku kusoo koobayaa uu leeyahay maxaan ku dhahay haddii aan rabno inaan loolanka caalamka aan ka qayb qaadano waa inaan isku daynaa inaan xoojino arrimahan. kow inaan la isku dayo inay dowlad walba ay isku daydo inay ku biiri karto kaalmaha ugu horeeya iyadoo ka duuleysa dhanka caafimaadka, kaabayaasha iyo waxbarashada iyo wixii lamid ah. haddii la rabo in arrimahaas la xoojiyana wuxuu leeyahay waa in la sameeyaa confederal amaba maxaan ku dhahay midnimo ka dhaxaysa maxaan ku dhahay wadamo kamid ah caalamul islaami. wadamada loo baahan yahay inay maxaan ku dhahay midoobaan uu doctorku ku talinayo sidoo kale professor Arbakan allah u naxariisto isaguna maxaan ku dhahay wadankan Turkiga maxaan ku dhahay waxqabad aad u weyn ka geystay uu isaguna ku talinayo. professorka Cabdalla Nafiisi la dhahan oo ku talinayo waxa weeye inay wadamo kooban ay midoobaan oo kow ka tahay wadankan Masar, Sacuudiga, Turkiga, Malaysia, Indonesia, Pakistan. wadamadaas oo wadamada caalamul islaami ugu waaweyn ah amaba tamar ahaan marka laga hadlayo ugu xoog badana waa inay ka midoobaan xagga maxaan ku dhahay arrimaha dibadda. yacni wixii ku saabsan arrimaha dibadda inay maxaan ku dhahay qaraarkooda uu cad yahay oo midaysan yahay. dhaqaalaha waa inay lacag sida euro oo kale waa inay taabacan karaan oo iyaga maxaan ku dhahay ka dhaxaysa. sidoo kale dhanka ciidanka yacni waa inay yeelan karaan maxaan ku dhahay NATO ama ciidan ay bahwadaag ku yihiin oo iskaga difaaci karaan cadowga shisheeye. dhanka safaaradaha waa in la qaadaa maxaan ku dhahay fiisooyinka oo wadamadaas iyo wadamada muslimiinta ee la midkaaba ay isu gooshi karaan iyagoona fiisa isweydiinaynin. qaybahaasuu kusoo koobaya doctorka Taariq Suweydaan aad buuna ugu mahadsan yahay kitaabkaas aadka ugu qiimaha badan. sidoo kale waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaad idinkuna ka bogan doontaan kitaabkaas. waxaan u mahad gaara mar labaad u celinayaa walaalka Cabdisamed oo igu marti qaaday programkiisa maxaan ku dhahay Taha Inspires. kitaabka aan ku talinayo waxa weeye waa kitaab isaguna kolley aan ka fogeyn dejinta maxaan ku dhahay qorshaha oo maxaan ku dhahay la dhaho Eat That Frog. waxaana qoray maxaan ku dhahay psychologist la dhaho Brian Tracy. kitaabkaas runtii waad u bogi doontaan waana kitaab aad maxaan ku dhahay aad ka fahmi doontaan qaabka loo dejiyo nolol maalmeedka iyo qorshayaasha uu qofku maagan yahay siday u kala horeeyaan qaabka aad maxaan ku dhahay u kala horumarin doonto. kitaabkaasna insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaad ka bogan doontaan. aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.